dabaday wehelkaaga dhigaruna waligaa la noqolo wadarubaada kala hela. sheekadu sidan ayay ku bilaabmaysaa. jacaylka dhallaannimo uu ka dhadhan iyo qoto dheer yahay dareemada kale. ma garanayo sababta saxda ah, laakiin waxaan garan karaa oo keli ah in kaayagu uu ahaa mid ku dhisnaa dareen walaalnimo, kuna koray aqoonna dhex taallay muddo aan yarayn. goobtu waa Boorama oo ah magaalo u roon korinta jacaylka lamaanaha isdoorta. daris ayaannu ahayn, waxna waannu wada baran jirnay. waxaannu ahayn carruur isku faraxsan oo aan ogeyn waxa ay la kori doonaan iyo waxa sugaya midna. subax kasta waxaannu isu raaci jirnay dugsiga. haddii aan ka soo horbaxo waan sii mari jiray oo waan sugi jiray inta uu guriga ka soo baxayo. isaguna sidoo kale ayuu samayn jiray maalinta uu iga soo horbaxo. in muddo ah ayaannu u sii lugayn jirnay dugsiga. intaas oo ahayd inta ugu qiimaha badan maalintayda. annagoo iska rab soconna ayaannu sii lugayn jirnay. magaalada oo markaas uu nala toostay ayaannu sii dhex maraynay inta aannu kaga hagaagno ee naga xigta dhanka dugsiga. dadka intana dhaafaysa, intana garab socota iyo inta aannu guryahooda ku hormarayno iyaga oo ku cadayanaya, midkoodna ma garan karo sida aannu isku nahay iyo wehelka uu midba midka kale u yahay. walow aannu carruur ahayn oo aanaan garanayn sababta aannu isu xigsanayno, haddana jawaab umaanu baahnayn. wax waliba saxdii ayay ahaayeen. wuxuu ahaa wiil aan isku hallayn karo. waxa uu iga celin jiray cid kasta oo igu soo gardaroota, wiilal iyo gabdhaba. dugsiga inta aan joogo difaac ayuu ii ahaa. wuu ii ilaashin jiray. xitaa marka macallinku ii garaaco, walow aanu wax badan ka qaban karin, haddana wuu ka xumaan jiray. aniguna sidaas oo kale ayaan u damqan jiray. marka la gaadho wakhtiga nusa saacaha waannu isku darsan jirnay, meelna wax ayaannu ku wada cuni jirnay. sidaas ayaannu ku soo wada kornay, sidaas ayaannu ku weynaanay. wax ku kordha mooyaane waxba iskama dhimin. waa sidii iyo Boorama iyo annagii oo weynaanay. nolosha haddii aad u fiirsato mar walba way dhantaalan tahay. mar ay buuxdo haddii aad aragtana wixii kala tuuri lahaa ayaa kugu soo aadan. waa dabcigeeda. taas ayaannu dadka kala sinnayn. maxaa xumaan kara? waannu weynaanay, daris ayaannu ahayn ilaa carruurnimadii, sidii ayaannu isu jecelnahay. maxaa xumaan kara? annaga waxaa naga xumaaday xidhiidhka labada qoys ka dhexeeya. labada reer ee aannu ka soo kala jeedno ayaa xaaladii ka dhexaysay. xaaladdaasi cidda u horraysa ee ay saamayn ku yeelatay waa aniga iyo isaga. si cad ayaana loogu sheegay in aan laysku kaayo oggolayn, weliba aniga. cadaadis xoog ah ayaa la isaari jiray. laba qof oo waaweyn ma la kala ilaalin karaa? midda kale, xidhiidh weligii soo jiray muxuu ka yaqaan reero islaayey? si kasta oo naloo kala ilaaliyo, naloo waaniyo, naloo kala eriyo, waannu kala maqnaan weynay. maalin maalmaha ka mid ah ayuu aabba igu yidhi, baadiyaha ayaynu aadaynaa. ujeeddada u weyn ee la ii kaxaynayo waan garanayay. waanan diiday intii aan karayay, balse waa la iga xoog batay. sidaas ayaan ku baxay. aabbahay waxa uu moodayaa inaan wax walba ku soo iloobayo baadiyaha, ama alaabaan dusha ku sito soo dhigayo. dhowr toddobaad oo aan maqnaa, dareen ayuunbaan la maqnaa. marnaba keligay ma aan ahayn. mar walba qalbigayga ayuu ku jiray. geed kasta iyo doox kasta oo aan arkana isaga uunbaa iga dhex muuqday. waxaabad moodaysay inaan ka raystay waxyaabo badan oo iga mashquulin jiray markii aan magaalada joogay. cidlo ayaan ula baxay. wehel ayaana ii ahaa intii aan maqnaa. sidii qof ila joogana uu i garab taagnaa. waa boqorka noloshayda, barbaariyaha iyo hagaha caqligayga.